inaan hadalkayga ku daro hadday isdhahaysaan niliima jeedo ilaaha idiin jeedo yaclamu khaa'inata al-acyuni wamaa tukfi suduur ilaaha idin arkaayo waxaan ilii dhiibay oo mas-uuliyadda maanta wax dheedheel ma ahan maalin kasta dalkan xadgudubyaa ka dhaco guryaha iyo waxa laga hadlaayo waa waxa ugu yaroo dalkan ka dhaco dhibaatooyinka xadgudubka kaloo dalkan ka dhacaa ka badan waxaan rabaa walaalayaalow ilaahay wuxuu yidhi waidaa qultum faacdiluu walow kaana daa qurbaa xitaa kan kuugu dhow ha ahaado waxaad ogtihiin xilligii rasuulka sal allahu calayh wasalam waxaa dhacday gabar aad famil qiimo badan oga dhalatay carab dadka ugu sharaf badan ka dhalataa wax hadday markaasaa waxaa la damca in la dhaho gabadhaan yaan la ceebaynin ee ha la asturo rasuulkuu warki gaaray sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wallaahi hadday faadimo binu maxamed ay ahaan lahayd qofka wax dhacay gabadhayda hadday ahaan lahayd gacantaa laga goyn lahaa gabadhiina xadkiyaa lagu oofiyey horta cadaaladda haddaa u naqaano markii annaga ay noo hiilisan inay cadaalad tahay markayna naga hiilisanaysan cadaalad ahayn cadaaladdu taas waa ka duwan tahay cadaaladda ilaahay wuxuu leeyahay in allaha yaamuru mashaaikhdii way joogtaa sheekh caliis guddigu ku jiraa waa ku faraxsanahay in asagoo diinta yaqaano uu guddiga ka mid ahaado dardaarankaasaa usoo istaagay waxa maanta soomaaliya haysto iyo waxa aan dhahayno 9 qofood oo guddi ah meeshaan fadhiyaan horta waxay xallin karaan maaha waa wax inaan u wada istaagnano looga baahan yahay gurigeena inay ka bilaabato laga baahan yahay hooyada guriga joogta wiilkeeda wuxuu soo sameeyey inay og tahay inay wiilkeeda waaninayso inay gabadheeda waaninayso guriga dadka dhibaatada geysanaya guryaheedna ugu nool yihiin horta reet inaan guryaheena ka bilaabno diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda waa mahadsantihiin halaad dhagihiinay siiseen asalaamu calaykum